Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa muuqaal kale oo aan uga hadlayno deeqaha waxbarasho. Maanta halkan waxaan uga hadlaynaa deeq waxbarasho ee ay bixiso jaamacad ku taalla waddanka Indonesia. Waa mid ka mid ah jaamacadaha ku yaala gobolka Central Java, gaar ahaan magaalada caasimadda u ah ee Samarra. Dad badan ayaa is soo weydiiya habka amaba qaabka ay u xareyn karaan jaamacadaha Indonesia. Jaamacadaha Indonesia helitaankooda waa mid aad u fudud marka loo barbardhigo jaamacadaha kale ee caalamka. Tusaale ahaan, shuruudaha ay doonayaan waa mid aad u fudud oo ah in shahaadada jaamacadda aad haysato iyo in aad luqadda Englishka wax ku soo baratay. Haddii aadan haysan IELTS amaba TOEFL, waad xareyn kartaa oo waxaad ku xareynaysaa warqad caddeynaysa inaad English wax ku soo baratay. Sidoo kale, shuruudaha da'da waa muhiim. Da'da ugu badnaan ee dadka heerka bachelorka doonaya waa inay ka yaraadaan 25 sano, halka kuwa masterka doonaya inay ka yaraadaan 35 sano, halka PhD la doonayo inay ka yaraadaan 40 sano. Dukumiintiyo kale oo yaryar ayaa la iska doonayaa. Deeqdan waxbarasho faa'iidada laga helayo ama waxyaabaha ay bixinayso waxaa ka mid ah fee-ga jaamacadda in laga dhaafo registration fee-ga, sidoo kale in laga dhaafo institutional development fees waxyaabaha ay ugu yaraan amaba abxaasta iyo wixii la mid ah. Sidoo kale, dormitory-ga waa halka aad seexan lahayd oo free ah iyadana. Sidoo kale, qofka ardayga waxa uu qaadanayaa lacag 2 milyan ah oo lacagta waddankan ah oo u dhiganta $150 ku dhowaad. Jadwalka deeqdan waxbarasho ayaa ah mid muddo kooban ka harsan, gaar ahaan xareynteeda, oo waxay xirmaysaa 31 May oo naga xigto dhowr maalin. Fadlan la wadaag muuqaalkan dadka danaynaya arrintan si ay uga faa'iidaystaan maalmaha harsan haddii ay diyaar u yihiin in ay wax ku bartaan waddankan Indonesia. Daraasadana sida aad u jeedaan waxay bilaabmaysaa Agoosto 19 sida caadiga ah. Jaamacadaha Indonesia xilligaasi ayay furmaan. Haddii aad doonayso inaad xareyso, waxaad ku dhufanaysaa halkan, click ayaad leedahay. Kadib waxa aad iska diiwaangelinaysaa adigoo website-ka jaamacadda, adigoo sameysanaya ciwaan cusub. Kadibna waxaad buuxinaysaa foomka. Haddii ay kuu soo baxdo sida tan oo ah luqadda af Indonesian-ka ayaa hadda saaran, waxaad adeegsanaysaa translator-ka. Tusaale ahaan, haddii aad right click gasho, translate wuu leeyahay to English. Fadlan iska diiwaangeli oo furo ciwaan oo ka furo website-ka jaamacadda, kadibna dhammaystir foomka. Haddii aad gudaha u gasho website-ka jaamacadda UNES, waxaad arkaysaa faculty-yada ay bixiyaan. Waxaa ka mid ah education, luqadaha, sidoo kale social sciences, iyo waxay kaloo bixiyaan xisaabta iyo natural science. Engineering waa ay bixiyaan. Sport science aa jiro. Waxaa kaloo jira economic iyo law, iyo sidoo kale medicine waa ay bixiyaan. Sidoo kale waxay bixiyaan postgraduate school oo ah waxbarashada heerka sare. Deeqo fara badan ayaa laga bixiyaa jaamacadaha Indonesia, si sahlan ayaana lagu helaa. Waan idinla soo wadaagi doonaa. Fadlan ku xirnow qanaadiil barteena internetka iyo ciwaanadeena social media. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.